برنايو هاي بلاني خدم بلاني حبيبي نفتيدي شدك تاك تاك وراح الضلال ما حولي شرط بلا يظهر الريحان maxaad ka ogtahay ciidan ay mar labaad u soo qaaday Hodan Cabdiraxmaan isla saaxiibadeedii Xamdi Bilan ee lagu xamanay saygeeda Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa ahaa laba lamaana ah kuwaasi oo in badan isa soo qabay ugu horeyntii ay ka dhacday Qadar Salimo balse saaxiib maxaad ka ogtahay dagaalka cusub imka mar labaad baraha bulshada ka soo cusboonaaday balse saaxiib intaan muuqaal guda galin fadlan videoga like saar sina share garee soo kala barteena YouTube-ka Cabdalla Deeqsana subscribe dheh waayo subscribe waxay noo tahay heer amba higsiyeedii kamid oo gaarnay leegtuna waxay noo tahay dhiirigelin iyo videoga oo si gaadhay saaxiibo kale oo nagu soo xidhmay idinku adu wanaagsantiin kuwa kale oo wanaagsan ayaa nagu soo xidhmi doona insha Allah saaxiib maxaad ka ogtahay dagaal cusub ayay isku soo mariyeen baraha bulshada Hodan Cabdiraxmaan iyo sidoo kale fanaanada kale Xamdi Bilan ayaa eriyadeedu waxay kamid ahaayeen waan ka reestay jacaylka qalbigeena waan ka saaray ee halka kaga hadh halka iyaduna hay lahayd in qof waliba waxa uu ku soo dhiirinaya aba ku soo caraysanaa waliba saygayga aan aad ku jecelahay ee Mursal Muuse taasoo ay hadaladaas ula jeetay isla Xamdi Bilan iyagoo fiirjooga insha Allah waan daawan doonaa balse waxaan marka hore ka hadlaynaa saaxiibayaal inta aanan muuqaalka soo bandhigin sida aad adigu aragto iyo sidee kula tahay adiga waxaan ugu reebaysaa insha Allah commentka in muuqaalkana waa si dhameysanaynaa asxaabay waan salaamay waa miskiintii Hodan Cabdiraxmaan oo isku soo noqotay salaamaysa maanta waxaan ka fursan waayay ducayro aad u macquul noqday oo aad u wanaagsan inaan idin la wadaago qof wallahi aad mudakaran way ugu tiri hadalkiiba marka ila weynaaday marka bal idinku intiina ka faa'iideysan kartaan aanu sheegan rabaa waxay tiri waxa lagu ducaystaa maamo ilaahu aqliga iyo caloosha baa wada istaajin maxaa yeelay tiri aqligu waa kad wanaag iyo sameelta ku kala garanaysay waa kad mudnaanta iyo sharafta iyo sida iyo wax qabadkii noloshaada iyo maskaxda waxaad uga fikiraysaa weeyaan calooshuna waxay tiri xanuun kasto bini aadanka ku dhaca caloosha ka bilowda calool xanuun aan calool keenin ma dhaca leeyahay marka waxaan idin leeyahay asxaabtayda sharafta leh intiina wanaagsan ee weyn saad klibkan ku soo aragteen amba muuqaalkan saaxiibayaal waxay in tiri qofka maskaxda iyo ilaahay caloosha iyo maskaxda biyuun iska dirin macnaheedu waxay ula jeedaa Xamdi Bilan oo ay ku tilmaamaysaa gabadh maskaxda iyo caloosha labadaba kari jiran taasina waa wax meel ka dhac amba gaf weyn ku ah marka la eego dastuurka amba in sharciyada u yaala dadka muslimiinta in isku xadgudbaan oo waxyaalahaas kale isku yiraahdaan soo kale Xamdi Bilan oo dhiggeeda ayaa iyaduna erey kale oo tan uga sii dareen oo budho kala galay amba boorka ka jafay ayay iyaduna u soo qortay amba u soo marisay social media in saaxiibayaal Xamdi Bilan iyo Hodan Cabdiraxmaan san wada ognahay waa laba qof oo isku hambiya oo sidoo kale wada fanaaniin Xamdi Bilan san wada naqaano waa fanaanadan oo amba ka hawlgasha amba fankeeda waxa uu ka dhisan yahay gobolada dhexe ee Soomaaliya in gaar ahaan gobolada Mudug in sidoo kale Puntland Xamar sidoo kale ugu dambeyntii waxay imatay Hargeysa halkaas oo Mursal Muuse heeso kula soo qaadi jirtay in ugu dambeeyna waxay in tagtay Xamdi Bilan wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ee caasimadda labaad ee wadankaas Turkiga in sidaan wada ognahay Xamdi Bilan waa xaas nin baa qaba balse lama soo bandhigto ninkeeda sababtoo ah ma aqaano sababaha ay u soo bandhigi weydo balse waxa jira sidoo hablo badan oo Soomaaliyeed oo soo bandhigay ragooda in oo xalan wax sawirada ragooda aan ku saabsan ana soo dhigan xataa baraha bulshada ama bartiisa maalan oo kamid ah in soo in Xamdi Bilan oo kale in waa adu fanaaniin badan oo soo koobi kareen ayaa jira oo soo bandhigay lamaanahooda in rag badan waxa jira iyaguna ana soo bandhigin lamaanahooda in kuwaasi oo de dhamaantood hanan social media si weyn ugu jirin saalanad madajad ninkeeda lama arko in sidoo kale lama arko in nasraabti doon oo ay gabadhii tubrada wax mar xitaa la weydiiyay waxay tiri ninkaygii anu inaan ku wada shaqeyno ma in maxad quraatay ama in shay quraatay oo ah ay ula jeeday marka YouTube-ka marka iyaduna waxay soo bandhigi weydeen ninkeeda wala lama weydiin kulay inay xitaa kala tageena hubaal cad amba wax cadaan loo hayo balse maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad iyagu meel awaalka iyo ku tarkoonada aad ugu xiisa amba intaas shaqadoodu tahay waxa leeyihiin way kala tageen balse anagu ma oran karno in Xamdi Bilan iyo saygeeda way kala tageen oo cadeyn dhab uma hayno sababta hadaan cadeyn u hayn inaan wax iska sheegno maaha amba dadka bini'aadanka iska fadaxaysano oo taasina mid looga fiican yahay balse Hodan Cabdiraxmaan ayaa iyadu aad uga shaksan inay ninkeedan ay ku soo dhawaanayso amba marka dambe ay ka qaadanayso balse waxaan idin haynaa clipkan oo ugu jawaabtay isla Xamdi Bilan Hodan Cabdiraxmaan oo san udhigna Hargeysa Olyaaristo mantay mamay kaharo ismahayna
jacaylka amigayga waan ka saaray ay xasuusin jacaylka saas waaye hayaay waxba ulama hadhin ruuhantii xamdi bilan si weyn ayay ugu dishay in marka loo eego kilibkan ay soo dhigtay indhigeeda Hodan Cabdiraxmaan oo ka shakisnayd amba muddadan baa iskiin aad ugu calaanaysa inay ninkeeda ka qaadanayso amba iyadu ninkeeda damacsan tahay taasna waxay tiri jacaylka anu hamigeyga waan ka saaray hay xasuusin bay tiri hay xasuusin jacaylka hay xasuusin wallahi waa eri aad u macaan oo la oran karo waxa uu yahay jawaab cad isla eriyada Hodan Cabdiraxmaan soo qoraysay Hodan Cabdiraxmaanna waxay ahayd marka horeba eedeynteedu mid kafka ah ama meel ku dhac ku ah fanaanada kale ee dhigeeda alxamdulillah mar hore la weydiiyay waxay tiri mursal muuse wax ma naga dhaxayaan balse Hodan Cabdiraxmaan ayaa wali afka la silaacaysa alxamdulillah balse saaxiib in waxaan ka codsanayaa mar saxad inaan muuqaalkan leeg saarto saan kelimada noocan oo soo badano haddii aad ka heshay muuqaalkan comment-ka noogu soo qor saaxiib YouTube-kana Cabdalla Deeqsana subscribe saar fadlan subscribe saar